kaalaya aan wax yar idiin sheegay wanaagu weligii ma lumo ilaahayna wuxuu ku abaalmariyaa qofka xilliga uu u baahi badan yahay aynu ku isla fahamno in qofkii carruurtiisa si wanaagsan u barbaariya uu arki doono mirihii uu tabcaday abaalgudkiisana uu heli doono tani waa sheeko xiisa badan ee la soco maalin maalmaha ka mid ah xaaji xamdi oo 50 sano jir ah ayaa fadhiya miiska cuntada xilliga saxuurta isaga iyo xaaskiisa iyo saddexdiisa gabdhood xabiiba hana iyo ritaaj saddexduba waa mataano dadooduna waa 22 jiro xaaji xamdi wuxuu yidhi ilaahay ha idin barakeeyo gabdhahaygiiyow mar walba waxaad guriga ka dhigtaan mid nolol iyo farxad badan leh waxaana ku faraxsanahay in aad hareerahayga joogtaan xaaji xamdi xaaskiisii mirfad ayaa tidhi maxaad ka wadaa hadalkaas xaaji xamdi halkii aad ka odhan lahayd insha allah sanadka soo socda mid kasta waxay joogi doontaa gurigeeda xaaji xamdi ayaa ugu jawaabay maya anigu taas ayaan ilaahay ka baryaa salaad kastana waxaan ku ducaystaa in bisha ramadaan ee soo socota in aan farxad ku wada ciidno ilaahay ha inoo barakeeyo gabdhaheena haddii guriga ka maqan yihiin waa cidlo oo qurux iyo farxad ma leh sidaa harteed la aanto waa abaar mirfad waxay ku jawaabtay xamdi anigu waan ku farxaa oo waan ku nastaa laakiin gabadhi gurigeeda ayay ku qorxoon tahay ee ugu ducee in ay gabdhuhu guryo yeeshaan kadib waxay fiirisay gabdhaha waxayna tidhi maxaad sidaas dhan iigu eegaysaan ma wax khaldan ayaan idhi mid ka mid ah gabdhihii ayaa ugu jawaabtay maya hooyo wax khaldan ma aadan odhan laakiin waxaad mooddaa in aadan na jeclayn oodna dhibsatay hanaa ayaa sii raacsatay haddii arrintu intaas ku ekaan lahayd way fiicnaan lahayd hooyo waxaad mararka qaar noola dhaqmaysaa sidii in aan culays kugu nahayo sidoo kale waxaad moodaa cunada aan guriga abo ka cuno in aanan xaq u lahayn gabadhii kale ayaa tidhi fadlan hooyo mar kale ha noogu ducaynin sidan camal waxaan rabnaa in aan mar walba garab joogno aabaheena oo aan aad u jecelahay hore ayaan idiinku nidhi haddii aan guursano waxaan guursan doonaa nin u naxariis badan sida aabaheena ma jiro nin qurux iyo wanaag ku dhan hooyadii ayaa ka aamustay dabcan waan ognahay jawaabta suurtagal ma aha inaad helno qof la mid ah aabaheena ilaahay ha noo daayo iftiinka indhaheena aniga waan ogahay mar kasta in aad aniga khaladka isaartaan hadalkayga mar walba waad dibsanaysaan kiisuna wuu saxan yahay haddaba aniguna waxaan ahay qof xun maya hooyo adigu qof xun ma tihid laakiin mararka qaar dhici karta in aad khalad naga gasho laakiin aabo wuu ilaaliyaa ilaahay ha noo daayo aabo macaan ana ilaahay ha ii daayo gabdhahayga allow hana kala fogeyn weligeen haddaba gabadhahayga quruxda badanow midiineeshaha noo soo karinaysa aadaanka salaada fajarka ayaa dhow ee aan suxuurta ka gaarnay bal eega halkii uu idiin oran lahaa eeb waaye waxaad hooyadiin ku leedihiin wuu iska qoslayaa aniguma waxaan ahay qof xun xilligaas hamdi iyo saddexdiisii gabdhood way qosleen gabdhihii jikada ayay aadeen oo waxay soo diyaariyeen shaah hamdina wuxuu galay jikada isagoo cod hoose ku leh kaalaya gabdhahaygiiyo halkan ma doonayo in aad waalidkii hadal xun dhahdaan midkiina yuusan mar dambe hooyadiin sidaas ula hadlin mirfat waa qof fiican oo aad u wanaagsan hadda baxa ka dhunkada gacanteeda iyo madaxeeda una sheega inaad ka xun tihiin wixii dhacay saddexdii gabdhood aabahood hadalkiisii ayay yeeleen wayna baxeen waxay dhunkadeen gacanta iyo madaxa hooyadood mirfat waxayna ku yidhaahdeen hanaga xanaaqin hooyo kadib waxay wada cabeen shaahi dabadeedna way seexdeen maalintii xigtay xaaji xamdi wuxuu aaday shaqadiisii mirfat waxay bilowday inay guriga hagaajiso saddexdii gabdhoodna way soo tooseen oo qolalkoodii ayay ka soo baxeen mirfat ayaa tidhi ilaahayow adaa mahad leh haddii ay gabdhahaygii ii soo nabad kaceen hooyo ma fiican tihiin hadda ii sheega gabdhahaygiiyow yaa guriga hagaajinaya yaa cuntada karinaya yaa sadaaradda xaaqaya gabdhihii waxay ugu jawaabeen waan ka xunahay hooyo waxaan rabnaa inaan ku sheegno inaan saddexdeenuba isdiyaarinayno oo aan baxayno sababtoo ah waxaa jirta shirkad shaqaale raadinaysa ee noo soo ducee inaan shaqadaas helno